daawadayaal ku soo dhawaada channelkan ee Haykal Production waa walaalkiin Liibaan muuqaalka waxaad kaga bogan doontaan heerka waxbarasho ee dalka iyo ardayda Soomaaliyeed saameynta ay ku leedahay hardanka dhageysiwan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan Haykal Production subscribe saar kadibna guuji kambalelka xiga si aad u hesho muuqaalo ku xiisgeliya Senator Farole muxuu ka yiri 20 August 2009 gaalkacyo waxaa loo gaaray heshiis ay kala saxiixdeen wafdi ka socday dowladda federaalka oo hogaaminayay Prime Minister Cabdirashiid iyo wafdiga Puntland anigu markii aan hogaaminayay waxaa lagu saxiixay education tacliinta markii laga eego waxyaalaha kale ka sokow in 25% deeqaha dibadda oo la helo macnaha waaga jaamacaduhu ay iska daciif ahaayeen xagga Puntland ay ka ahaayeen xamarna ayaan wax badan ay jirin meel kale jaamacad ka furnaynba in deeqaha la siiyo 25% Puntland ardayda ka soo baxay iskuulada sare waxbarashada Soomaaliya Cabdilaahi Goodax Barre muxuu ka yiri bal fiir wuxuu dadka Soomaaliyeed u sheegay waxaas heshiis si fiican u dhigay bal Farole dowladda federaalka oo hogaaminayay Prime Minister Cabdirashiid iyo wafdiga Puntland anigu markii aan hogaaminayay Goodax Barre wuxuu yiri aniga iyo Cumar Cabdirashiid ayaa gaalkacyo hadda xamar ma ogow gaalkacyo ku kala saxiixanay in 25% deeqda Soomaaliyeed la siiyo Puntland waxa soo kama qaldan طبعا waxba ka qaldan Cumar Cabdirashiid heshiiskaas meel uu geeyo horta lama yaqaan kulli xamar ma keen كل وزارة waxbarashadu ma arkin waa wax niman reer Puntland slee ee xaq isku sheegeen kulli aan isaasan fasirtay maanta inuu fagaaro la soo istaago oo gar ku naqsado Cumar Cabdirashiid yiri 25 aad leedahay Farole in deeqaha la siiyo 25% Puntland ardayda ka soo baxay iskuulada sare hadda badan baa ka soo baxay heshiiskaas waagaas la saxay Goodax Barre Farole waa lagu xariifay markaas laakiin aqliyadaas nin ku shaqeynaa noocaas loo shaqeeyo sayida tahay maxay Cumar Cabdirashiid xamar uu keen lahaa dadku soo bandhigi lahaa doo waxaas oo kale uu sameeyay laakiin kulli oday qoorta muddo wahayo oo reer Puntland ayuu iskaga reebay qiyaas